runtii wacan saaxiibada qiimaha badan waa salaamantihiin meel kastoo dunida daafeeda ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta ciyaaraha inta badan maanta barnaamijkeena waxaa kaga bagan doontaan kulanka weynaa dhankaas Santiago Bernabeu lagu ciyaaray iyo wacdaraha ay dhigtay kooxda kubadda cagta Real Madrid oo comeback cajaa'ib badan sameysay kulankaasi dhacdooyinka dhacay iskoorada la diiwaangeliyay ayaan barnaamijkeena kula fogori doonaa sidoo kale halka naga daawanaysaan saaxiibada qiimaha badan waa channelkeena masraxa ciyaaraha hadda ku cusubtahay subscribe noo saar sidoo kale hadda naga daawanaysa page-keena Mo Talyaani waxaan ka codsanaa in asna follow soo dhahdo sidoo kale waxa idin ka codsanaa muuqaalkan like garay hala saaro bal marka hore waxaan ku bilaabi doonaa natiijada cajaa'ibka badneed ka soo baxday kulankii lagu ciyaaray dhankaasi Santiago Bernabeu saaxiibada qiimaha badan kulankan lugtiisa koowaad semi-finalka waxaa lagu dheelay dhankaas Etihad sidoo kale kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa 4-3 ku soo baday sidoo kale Man City markay imaanaysa dhankaas Bernabeu hamigeedu uu sareeyay sidoo kale waxay maanka ku haysay inay u soo bixi doonto finalka Champions League laakiin gabi ahaanba saaxiibada qiimaha badan kooxda mucjisada sameysay kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa marnaba aan quusanay sidoo kale xalay waxay qarqisay kooxda kubadda cagta Real Madrid sidoo kale ayadoo comeback cajaa'ib badanna sameysay sidoo kale saaxiibada qiimaha badan kulankan kooxda kubadda cagta Real Madrid aad loo qoysay maadaama qaybta kooda ciyaarta Real waxba ay sameeyeen sidoo kale si fiican aysan u ciyaarin laakiin gabi ahaanba natiijada ka soo baxday ayaa noqotay mid shock kurdi taageerayaasha Man City saaxiibada qiimaha badan kulankan daqiiqada markay mareysay 73 waxa gool kaga naxasay kooxda kubadda cagta Real Madrid laacibka lagu magacaabo Mahrez halka goolkan uu caawiyo wiilka lagu magacaabo Bernardo Silva laakiin kooxda marnaba aan isdhimin Real Madrid ayaa maankeed ku haysay inay comeback cajaa'ib badan sameyn doonto sida daraadeed waxaa la isleeyahay saaxiibada qiimaha Man City way soo baxday maadaama markaas ciyaarta ay natiijada noqotay 5-3 ay natiijada noqotay laakiin gabi ahaanba saaxiibada qiimaha badan kooxda maqoostada Real Madrid ayaa xalay injury time waqti loo yaqaan ama extra time waqti dhimashada kooxda Man City gool degdeg kaga naxsatay 3 gool oo degdeg ah ayaa la imaaday wiilka da'yar sidoo kale reer Brazil waa ninka lagu magacaabo Rodrigo ayaa ninkaas ayaa 90 daqiiqo markay ciyaarta mareysay gool shabaqa ku hubsaday sidoo kale 91 mid kale ayuu kaga naxsaday Real Madrid mid kale ayuu kaga naxsaday kooxda kubadda cagta Man City taasoo Man City saaxiibada qiimaha badan moralkeeda dhintay sidoo kale niyad cajaa'ib badanna kulankaas la kulantay sidoo kale gool magafaha waa ninka lagu magacaabo Benzema ee daqiiqadii 95aad gool Benzema ayaa saaxiibada qiimaha badan daqiiqada 95aad penalty ama gool kulaad rigoor ah ku hubsaday shabaqa kubadda cagta Man City taasoo natiijada ka dhigtay 3-1 sidoo kalena kooxda kubadda cagta Real Madrid ay ku soo baxday isku darka labada logood 6 iyo 5 ay ku soo baxday sida daraadeed saaxiibada qiimaha badan kooxda kubadda cagta Man City ayaa markaan semi-finalka lagu reebay sidoo kale waxa ticket ka jaratay kooxda kubadda cagta Real Madrid dhankaasi Paris ay 28 bisha May kula ciyaari doonta kooxda kubadda cagta Liverpool oo ayadana hore iskaga xaadirsay finalka sida daraadeed waxaan isla fiirin doonaa kulankan waxyaabaha saaxiibada qiimaha badan laga diiwaangeliyay skooradii xalay dhaca saaxiibada qiimaha badan inta badan waxa qaatay laacibka lagu magacaabo Karim Benzema waxa la leeyahay Karim Benzema saaxiibada qiimaha badan waa ciyaartooyga labaad u suurta gashay waxa loo yaqaan knock-out ama gudbaxa inuu 10 gool Champions League ka dhalin darajadan kaliya waxa kaga horeeyay laacibkii hore CR7 ama Cristiano Ronaldo ay u suurta gashay xil ciyaareedka markuu 2016-2017 knock-out ama gudbaxa kulamada loo yaqaan inuu 10 gool u dhalay kooxda kubadda cagta Real Madrid sidoo kale hadda darajadan waxa ku soo biray laacibka Karim Benzema sidoo kale ninkan saaxiibada qiimaha badan iskoorada kale uu sameeyay inna bacaad ma loo magali karo Karim Benzema waxa la leeyahay ciyaareedkan wuxuu saftay 43 kulan ayuu saftay sidoo kale 43 goolna shabaq ayuu gaarsay sidoo kale waxa la leeyahay markii loo imaado competition kan Champions League 11 kulan ayuu kooxdiisa kubadda cagta Real Madrid u saftay sidoo kale 15 gool ayuu xil ciyaareedkan shabaqa gaarsay markay noqotay Champions League taasoo ku tusinaysa ninkan saaxiibada qiimaha badan in uu sameeyay progress aan bacaadeen sidoo kale saaxiibada qiimaha badan waxa leeyahay bugbaxa knock-out kan wuxuu ka dhalay 10 gool sida daraadeed had inta badan majaladaha maanta waxay isku raaceen Karim Benzema inaysan cidna ka xigin balad loo yaqaan Ballon d'Or maadaama ninkan saaxiibada qiimaha badan uu sameeyay waxaan aqliga gali karay sida daraadeed waxa leeyahay hadii sanadkan balad loo yaqaan Ballon d'Or la siin waayo ninka lagu magacaabo Benzema waxay noqon doontaa good laga gali doona ninka lagu magacaabo Karim Benzema maadaama ninkan xil ciyaareedkan uu soo jiray ciyaaryahan ka fiican haday noqoto competition-ka competition-ka Champions League sidoo kale ninkan kooxdiisa kubadda cagta Real Madrid-na wiigan bilowgiis wuxuu kula guuleystay liigaha Spain sidoo kale saaxiibada qiimaha badan iskoorada xalay dhaca la diiwaangeliyo waxa kamid macalinka reer Talyaano ninka lagu magacaabo Carlo Ancelotti ayaa noqday macalinka ugu hore ee 5 finaal Champions League gaaro ninkan saaxiibada qiimaha badan darajada uu ku soo kordhay kubadda cagta inna bacaadi maahan sidaan ka warqabnay wiigan bilowgiis wuxuu noqday macalinka kaliya u suurta gashay
macalinka kaliya u suurtaga shanta horyaal Yurub ugu caansan inuu ku guuleysto ninkan saaxiibada qiimaha badan isbuucan kooxda kubadda cagta Real wuxuu la guuleystay La Liga ayuu la qaaday sidoo kale AC Milan wuxuu la qaaday Scudetto kal Talyaani sidoo kale kan PSG wuxuu soo qaaday Ligue 1 sidoo kale Chelsea wuxuu kula guuleystay Premier League sidoo kale Bundesliga wuxuu la soo qaaday Bayern Munich oo macalin kaliya u suurta gashay shanta horyaal Yurub ugu caansan inuu la qaaday shan naadi kala gedisan kan fiirin saaxiibada qiimaha badan 62 jirkaan lagu magacaabo Carlo Ancelotti shan mar ay u suurta galaysaa inuu Champions League finaalkiisa ciyaara markii ugu horeyso final ciyaar saaxiibada qiimaha badan waxa ay sanadkii 2013 sidoo kale kooxda kubadda cagta Juventus ayaa Old Trafford kaga qaaday kooxda u watay AC Milan sidoo kale ninkan saaxiibada qiimaha badan kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa comeback ajaa'ib badan ku sameysay sanadkii 2005 Turkey lagu ciyaaray finalka sidoo kale waxa ka qaaday Liverpool ayaa ka qaaday competition kan lagu magacaabo US competition kan Champions League sanadkii 2005 kooxda AC Milan ayaa laga qaaday laakiin كان صاحبه قيمه بدن ليفربول وحو كاسس سندكii 2007 maadaama 2-1 uu kaga qaaday kooxda Liverpool sidoo kale ninkan saaxiibada qiimaha ban 18 sano kadibna hadda waxay u suurta gashay in kooxda kubadda cagta Real Madrid uu la gaaro finaalka Champions League waana macalinka kaliya u suurta gashay shamar Champions League finaalkiisa inuu ciyaari doono sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan kooxda kubadda cagta Real Madrid 28 bisha May aan ku jirno waxay finaalka Champions League la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta Liverpool sidoo kale finaalka wuxuu ka dhici doona dhankaasyo فرنسا عاصمة باريس ayaa lagu ciyaari doona kulankaas sidoo kale kulankan xogihiisana waa soo gudbin doona laakiin hadda Real Madrid finalka iska xaadirsay dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan kooxda kubadda cagta Real Madrid waxa la leeyahay aqoon fiican oo leedahay koobkan Champions League sidoo kale saaxiibada qiimaha badan sidoo kale Liverpoolna sidoo loo garaacay taqana maadaama sanadkii 2018 ay Champions League finalkiisa ay wada ciyaareen sidoo kale kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa 3-1 kaga qaaday kooxda kubadda cagta Liverpool sidoo kale taageerayaasha Liverpool waxay mar walba codsanayaan in Real Madrid ay u soo baxdo finalka si ay kaga aarsadaan cawaaqib xumada ay ku sameeyay sanadkii 2018 sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan finalkan 28 bisha May dhankaasyo Paris ayaa lagu ciyaari doona sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan halkaas ay noqdaan barnaamijkeena falanqaynta ku soo qaadanayna kulanka weyn xalay laga ciyaar dhankaasyo Bernabeu sidoo kale kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa finalka soo gudubtay waad ku maasantiin daawashada muuqaalkan fadlan haday taa markii kuugu soo boqonayso channelkeena subscribe noo saar sidoo kale ha ilowin in aan muuqaalkan noo saarto hana ilowin hadda naga daawanaysa page-keena Mo Talyaani ina follow soo dhahdo inta barnaamijkan barnaamij kulmayna sidaas amaana Allah salaamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh